وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أول وزير كبيادة وزير ذا كله حل بعنده bulshada qaybaheeda kala duwan gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe ee hadda nagu soo biirtay bahda saxaafadda qof walba majaalka ay ku leedahay rabaa inaan ku salaamo awalan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعد السلام حقيقة موضوع ما يعني سلماتك وكدرك سنة وأرين حساسي لو باهي قف الباب إنه متقنا كجيستو كالين بيئة سيدا هريب اللي قد واجي وحيابها بني آدم وأها أساسي وأه محل هذه بيئة خلل كدعة وحبذنا خلل كدعة مثال حال سوقاتي درتا ودباتو وين لغو هايو وغارتيو دباتو وين لغو هايو taasna meel kale nooga imaanaysa waa bulshadeena maxaa loo baahan yahay horta awalan in la helo wacyi gelin la helo dadka laga wacyi geliyo la yiraahdo hadii aad mataqaanaa deegaanka aad baabiisiin dhibaatadu adiga kuma saameynayso bulshada inteeda kale ay saameynaysaa maxaa dhibaatada ay timaado maxaa leeyahay tacumu saalix wa daalix waay cid walba toos ay saameynaysaa markaan soo qaadano dhirta waa ogtiin xaaladda maanta ay taagan tahay ilaa yacni la rabo maanta in lagu leeyahay waxaa laga sameynaa material laga sameynaa oo geedihii la gubayo dhuxul laga sameynaa haddii deegaan walba ee meeshaas ku yaalo la yiraahdo geedka ku yaala laga sameeyo dhuxul oo qof walba oo u fikiro inuu mataqaana uun wax yar oo mataqaana isagana maalintaas uu ku maareeyo noloshiisa uu ka fiirsado laakiin uu saayatin iyo fuujir dambe u fikirin maxaa imaanay waxa imaanay in mataqaana meel harsada la waayo in mataqaana geedii ay baaba'an in ayaan darro ay dhacdo dhibaato badan ay imaanayso saasoo kale ugaarta dhibkaas haysta iyadana oo arkaysa sidaan ognahay dadka qaar waa yaryar yihiin sanada ka hor 20 sano ka hor marka xeebta aan marto ama deegaanada qaar aan marto waxaad arkaysa deerada iyo in meelad ka istaagto aysan lahayn saas raxan ay u socoto maantana aad arkaysa xabad deera inaad ku arkeenin maxaa keenay yani ugaarsiga lagu haayaa keenay hadda ma jirtaba ma arkaysidba markaad xeebta marto hal deero oo mataqaana aad arkaysa ma jirto deeradana waa quruxda yani bulshada yani waxyaabaha mataqaana quruxdeeda ay ka mid tahay ama ugaarta inteeda kale marka sidaas daraadeed wasiirkeena yani bii'ada وزير آدم بري آدم متقنا أن وجمع هذا علينا السويمات كان أما متقنا شركة وغبطي وكسب سن بيئة إن بدنا نكمل ولي بوجع لها هاي الرماء نوعنا والرماء جلا يميل والبتابنا لكن لو باهي علماء إن متقنا حتى على الأقل أي سوق ضدك وعيقلين أسميس أي أسميس وحلي لا توعي أسميس خد بدأ kusoo qaadato dadka laga wacigeliyo la yiraahdo hadii aad mataqaana bii'ada inteeda ama ha aato dhirti ama ha aato mataqaana dugaag ha aato dhibaatada ka ratibmeen waa sidaas inay ku soo qaataan oo khudbada ay noqoto khudbo jimcada ka turjumayso waxa yaalo xaqiiqatan waana dhihi karnaa maanta dhibka ugu weyn Soomaaliya haysto waxa laga yaabaa dadku inay meelo kale ka fikirayaan anti la'aan ka fikirayaan wax la abuur ka fikiraya laakiin waxa ugu daran hadaan bii'adeena quruxsano wax badan ma taqaana noo hagaagayo walaal marka sidaas daraadeed waxaan soo jeedinaa waa arrin loo baahan yahay wasiirka iyo hay'adda kale oo ka socotay ma taqaana wasaaradda xafiiska ra'iisul wasaaraha barnaamijkan ay curiyaan aadan u soo dhaweynaynaa waan ku bogaadinaynaa balse yeysan noqonin in maalin inta nimaado aan kala tagno yeysan noqonin ee lagu dalaalo mar walba dadka qalbigooda in wax laga bedelo oo la dareensiyo lagu dardar geliyo la fahamsiyo maalin qofka hadaad u sheegto iska dayso waxa laga yaabaa in uu maskaxdiisa mataqaana ku iloobo laakiin hadii lagu soo celceliyo
maskaxda wixii lagu celceliyo waa qabanaysaa dadkana loo sheego mar walba oo la yiraahdo dhibaatada ka tartimaysa bii'ada oo la dhibaateeyo waa asaasiyaas waxaan rabaa mataqaanaa inaan hadaladayda ku soo goobiyo aan ku soo gabagabeeyo khulaasada hadalkayga wuxuu yahay aan iska kaashano wax walba bulshadan dan u ah maslaxad u ah dhamaanteen aan iska kaashano aan isku boorino taasaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum.